السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناكسان وهلك أنك داونيسان وكانال كيني كافتون ميديا عاوها برنامج كان كو قادر دونو waxaa kamid ah dhibaatada ay leedahay daroogada. waxaan wada ogsoonahay in badan oo dhalinyar ah oo Soomaaliyeed la ildaran isticmaalka daawada daroogada ah taasoo waxyeeleysay maankoodii iyo maskaxdoodiba. haddaba maxaa sababa inay isticmaalaan dhalinyarta daawadaasi? maxaa keenay? sidee baa loogu hortagi karaa? saameynta ay ku yeelan karaysa bulshaduna maxay tahay? caawa intaasi ayaan ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkayga aan kaga hadlayno wacyigelinta bulshada. waxaan wada ogsoonahay maadada la yiraahdo daroogada had iyo jeer waxay dhibaato baahsan ku haydaa dhalinyarta. waxaan arki jirnay waagii hore dadka waaweyn inay isticmaali jireen, laakiin hadda waayahani dambe ayadoo la soo casriyeeyay oo waxaad arkaysaa qaabab gaaladani aad u jeedaan waxay nagala dagaalamaysaa dhan waliba. waxay keeneen waa la soo carfinayaa hal waliba carfis ma ahan oo waxaa la rabaa sidii lagugu tababari lahaa ama lagugu sii lahay ama lagugu cunsiin lahayba daroogadaasi. waxaa lagu leeyahay inta badan dhalinyarta hadda waxaad arkaysaa inay isticmaalayaan taabuu. awal kore wuxuu ahaa taabuuga mid bulshada ay caadi ahaan ay ka noqotay oo meel waliba lagu iibiyo, meel waliba aad tagdidna aad ku arki karaysid in badan oo dhalinyar ah oo isticmaalayso. haddaba waxaa kasii gudubtay arrinkay aan ogeyn oo ahaa markaasi taabuuga. hadda waxaa imaaday in lees durayo cirbad la yiraahdo tramadol. cirbadaasi markay lees duro qofka waxay bedelaysaa maankiisii, maskaxdiisii ayay bedelaysaa oo waxay ka dhigaysaa qofkii inuu markaasi noqdo mid adduunyo kalenta iyo wadci kale ay u shidmaan. waayo waxaa keenaya isticmaalkii uu isticmaalay daawadaasi si aan waafaqsaneenba xeerkii caafimaadka. waxaan wada ogsoonahay dhalinyarta inta badan koolada cabta waxaa keeni karaya dhibaato fara badan bulshadana ay u keeni karayaan. waxaad arkaysaa daawadaasi markuu isticmaalo maadaama maskaxdiisii aysan joogin inuu waxyeeleeyo ummadda kaleento sida haweenka, caruurta iyo wixii markaasi halkaasi ka agdhow. haddaba sidee baa markaasi lagu horumari karaa dhalinyartaasi isticmaalaysa daawooyinkaasi daraagiska ah sida alkulada, taabuuga iyo cirbadahani hadda soo baxay ee isdurayaan oo qofkii bedelaysa maskaxdiisii? waxaan aragnaa in badan oo bulshada ka mid ah inay markaasi ayagana hamigooda yahay sidii ay ku joojin lahaayeen dhalinyartaasi, balse laakiin waxaa jira kontarool la-aan iyo wacyigelin la-aan iyo sabab la-aan markaasi ay ku isticmaalayaan. markaa weydiis wuxuu ku leeyahay waxaan qabsaday jirkeygii oo wuxuu sameeyay adaptation wax loo yaqaana inuu jirkii markaasi la qabsaday. marka waxaa lagu sameyn karaa markaasi qaarkood bulshadaasi ama dhalinyartaasi waxaad arkaysaa cunug yari oo isticmaalaya alcohol. markaa weydiis wuxuu ku leeyahay waalidkayga lama joogi, hooyaday lama joogi, way kala tageen iyo wixii lamidka ah. haddaba waxaan dhihi lahaa bulshadaasi warheedhe bulsho yahay dhalinyar bahay waxaa idin baahan wadankiini, waxaa idin baahan dadkiini. iska joojiya koolada iyo waxyaabaha aad isticmaalaysaan ee daraagiska ahi. haddaba daraagiskani waa halig nafsadaada, ummadda kalena halig. bal intaad wax haligi lahayd nafsadaada haligi lahayd iska daa daroogada, cirbadaha, alkulada, taabuuga iyo wixii lamidka ahi. balanteenu marka waxa weeye sidaan u ciribtiri lahayn, u joojin lahayn wax waliba maanka bedelaya qofka bini'aadanka maankiisa. haddaba balanteenu waa alwiqaaya khayru min alcilaaj.